soo dhawaada janaalkeena Somali News oo inta badan aynu ku soo bandhigno tiknoolajiyada ugu dambeysay iyo waliba wax loo ku saabsan shirkadda isgaarsiinta Hormuud. Haddii aad tahay qof isticmaala Hormuud oo ku anfacaya janaalkeena waxaad kala socon kartaa dhammaan xog waliba oo ku saabsan Hormuud. Horey waxaynu soo dhignay qaababka kala duwan ee lacag ama $1 aad ugu hadli karto hal saac. Sidoo kale waxaynu soo gelinay sida aad $3 ugu hadli karto 24 saac oo xiriir ah. Dadku wuxuu anfacaya inta badan ganacsatada dib ka daawo. Sidoo kale waxaynu soo gudbinay qaabka haddii lagu basaasay aad ku ogaan karto waxyaabo u dambeeyay soo dhignay wuxuu ahay data ka dhacaysa sida aad ku cusboonaysiisan karto mise aad lambarka kaada kale aad ugu dirsan karto si aysan kaaga dhicin. Haddan waxaynu soo bandhigaynaa shirkadda isgaarsiinta Hormuud howlaha ay hayso iyo waliba dhammaan adeegyada hayso oo aysan wali soo bandhigin laakiin ay doonayso inay soo bandhigto. shaashadada ayaad ku qoraysaa xidig 405 gees okay ayaa leedahay. waa kuwana adeeg caawiye waynu naqaanaa, muallim waynu naqaanaa, fariin wadaag waynu naqaanaa, suuq sahal waa cusub yahay, marwo waa cusub yahay, tacab waa cusub yahay, shaafi waa cusub yahay, aqoon maalna waa cusub yahay. sidoo kale eber Kate ayaa hadda jiro oo lambarada aad ku kaysanayso fadlan isoo waxa waaye markaad taabato waxaad gelinaysaa xitaa waxaad gelin kartaa magacaaga. waxaad leedahay Mustafa waaye dhag Axmed waaye dhag ama cancel. waxa waaye Hormuud isticmaalow adeegan uu ku anfacayaa. la soco shirkadda isgaarsiinta Hormuud. hore waxaynu u soo bandhignay sida habka ugu fudud ee Salaam Somali Bank aad lacag kala bixi karto hal step ma aha inaad geliso lambar sireedka yaad loo bedelaysaa sababta waxaasna ka bax hal mar rab asoo ku saari. waxaynu soo wadnaa adeegyo aad iyo aad u muhiim badan oo ay ugu muhiimsan tahay sida habeenkii 1 saac ilaa 6 saac aad u isticmaali karto internet free ah kaasoo ah internet satellite hawada saaran oo Hormuud xitaa aysan xakameyn karin African oo aysan soo gaarin xakameyntiisa laakiin adigu ku anfacayo maadaama aad tahay qof laga yaabo u baahan adeegaas xawaaris uga u sarreeyo. subscribe to channelkeena. Wassalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh.